Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabta meel kastoo dunida ku joogtiin. Ma ogtahay dhalinyaranimada inay tahay nimco Ilaahay subxaanahu wa ta'aala na siiyay. Dhalinyaranimada waa fursad aad qaali u ah. Waxaa rabaa inaan kula wadaago qiso aad u xiiso badan. Anta aanu guda galin qisadani marka hore muuqaalkaani like saar sidoo fara badan u gaaro. Haddii nagu cusub tahayna nagu soo beer. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Waxaynu haynaa wadadii aan ku gaari lahayn 3,000 oo subscribe. Ka mid noqo asxaabtina gaarsiin lahayd. Nin oday ah oo isbitaal ku jira ayaa la wareystay. Odaygani wuxuu ku jiray isbitaal ku yaala dalka Masar. Waa la wareystay. Waxaana la weydiiyay xaaladiisii. Wuxuu yiri xaaladaydi waa iska fiican tahay. Wuxuuna yiri Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ku mahadsan maadaama aan ahay qof muslim ah. Waxaa lagu yiri imse jir ayaa tahay. Wuxuu yiri waxaan jira 95 sano. Markaas ayaa la weydiiyay waxaad noo sheegtaa maalimihii aad soo joogtay dunidani waxyaabihii aad soo qabsatay. Markaas ayuu ooyay. Ooytin ayuu la dhacay. Dadkii aad ay u yaabeen. Waxaynu ku yiraahdeen maxaa kugu dhacay? Aad ayuu u ooyay. Markuu dhameystay oohintiisii ayuu wuxuu yiri waxaan aaminsanahay waqtigaygii in ka badan kala bar waxaan ku lumiyay waxyaabo maalayacni ah. Waxaan ahaa qof in badan aan ku dadaalin cibaadada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Waxaan ahaa qof sameeya dambi waliba la sameeyo. Waqtigii aan dhalinyarada ahaa ma aaminsanayn inaan maalin aan kori doono sariir sababtoo ah waxaan ahaa qof aad u awood badan. Naftaydii aad ayaan ugu kalsoonaa. Maalmahaasi waxay ahaayeen maalmo agteydii aad ugu qurux badan. Waxaan ahaa qof aaminsan inaysan jirin cid ka xoog badan balse maanta waxaan saaranahay sariirta. Aad ayuu u ooyay. Dadkii way la yaabeen. Markaas ayaa lagu yiri maxaad la ooysay? Wuxuu yiri waxaan la ooyay dhalinyarannimadii aan ka soo faa'iideysan. Waqtigaygii dhalinyarada ahaa waxaan ahaa qof ku dadaalay waxyaabo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diiday. Maantana waxa ma qabsan karo. Waxaan aaminsanahay maalmahaasi aad ku wacnaa haddii aan ku soo dadaali lahaa waxyaabo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raalli ka yahay. Maanta ma aanan oohi lahaynin. Hoogo ayuu aamusay. Kadib wuxuu yiri waxaan rabaa dhalinyarada inaan fariin u diro. Markaas ayaa lagu yiri soo dhawaaw. Wuxuu yiri dhalinyaranimada waa fursad aad u gaaban. Qofka muslimka ah waxaa laga rabaa inuu ka faa'iideysto fursadaasi. Wuxuu yiri aniga maalimihii wacnaa aan soo maray haddii aan ka faa'iideysan lahaa waqtigaygii maanta ma aanan shilaayi lahaynin. Wuxuuna yiri waxaan dhalinyarada ku dhiirigelinayaa inay ka faa'iideysadaan waqtigoodii, inay ka fikiraan horumarkoodii. Wuxuuna yiri qofka intuu ku jiro da'da 25 ilaa 50 sano inta u dhaxayso qofku wuxuu yiri looma baahno inuu seexdo, inuu iska jeefo, inuu iska baashalo balse waxaa la rabaa inuu leeyahay ujeedo. Waa inuu leeyahay ujeedo cad oo ah inuu horumar gaaro, inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala agtiisii aad ugu shaqeysto. Waa inuu ka fikiraa waxyaabaha uu sameyn lahaa. Waa inuu ka fikiraa waxyaabihii u horumarsan lahaa. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhalinyaranimada qofkii ka faa'iideysada wuxuu gaarayaa horumar. Sidoo kale wuxuu yiri dhalinyaranimada waxay leedahay dhibaato aad u fara badan. Qofkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xanuuni maane. Wuxuu yiri qofka markuu dhalinyaro yahay wuxuu ku dadaalayaa inuu sameeyo waxyaabo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaaraantinimeeyay. Wuxuu aaminsan yahay inuu yahay qof aad u awood badan. Wuxuu yiri aniga ayaa tusaale idan kaga filan. Maalimihii wacnaa aan soo maray kama aanan soo faa'iideysanin. Maanta shilaa ayaan halkaan la jiifaa. Oohintaan aad u jeedid waxa iga keenay waxyaabo aan soo xasuustay waqtigii aan dhalinyarada ahaa. Wuxuuna ku ooyay alla dhalinyaranimada maxay fursad tahay. Alla dhalinyaranimada maxay fursad tahay. Qisadani waxaynu ka fahmaynaa dhalinyaranimada inay tahay fursad aad qaali u ah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qof waliba soo mariyo. Waxa loo baahan yahay waqtiga aad tahay dhalinyarada inaad ka faa'iideysatid waqtigaadii. Waa inaad ka fikirtaa horumarkii aad gaari lahayd. Waa inaad ogaataa sababta lagu keenay adduunkani. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adduunkani ciyaar laskuma keenin. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay qofka dhalinyarada ah mar waliba ku dadaala cibaadada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Mar waliba ku fikira inuu salaad ku tukado masaajidka. Mar waliba qalbigiisa ku xiran masaajidka inuu yahay qof loo rarinayo arshiga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalinta qiyaamo. Waxaa jira 7
maalinta qiyaamo loo raranayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala arshigiisii. waxaa ka mid ah qofka dhalinyaradiisii ku dadaalay cibaadada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala, ku dadaalay salaadaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala, ku dadaalay akhrinta quraanka kariimka. waa fursad aad qaali u ah, loo baahan yahay maanta inaan ka fikirno. haddii aad dhaaftid da'da kontonaad waxaad noqonaysaa qof isku diyaariya dhimasho. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ummadeydii waxay u dhaxaysaa 60 ilaa 70, 60 ilaa 70. wax yar ayaa dhaafa. waad ogtihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisii intooda badan waxay ku dhinteen 60 ilaa 70. waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu ka fikiro fursadani aad u yar u haysto. waa inuu ka fikiraa inuu ku dadaalo cibaadada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. waa inuu ka fikiraa maxaa ka horeeya maalinta qiyaamo, maxaa horumarsatay. waa su'aal loo baahan yahay maanta in laga fikiro. qisadani hanoo noqoto ibra qaadasho iyo inaynu ka fikirno fursad aan maanta haysano. haddii aynu nahay maanta dad dhalinyaro ah waxaa la rabaa inaynu ka fikirno maanta maxaynu qaban karnaa. iyaysan waqtigeennii noo baabi'inin isticmaalka social media sida TikTok, Facebook iyo aaladaha kale ee la isticmaalo. waa inaynu uga faa'iideysanaa waqtigeennii cibaadada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. qisadani waxaa noogu sugan ibra qaadasho. odaygani wuxuu saaran yahay maanta sariir, wuxuuna la yaaban yahay da'da uu jiro iyo fursadihii soo maray asagoo uusan ka soo faa'iideysanin. waxaana loo baahan yahay inay noo noqoto ibra qaadasho. walaalayaal, waxaan rajaynayaa muuqaalkaani inaad wax badan ka faa'iideen. muuqaalkaani qofka walaalkaada gaarsii si asagana uga faa'iideysto. haddii nagu cusub tahayna nagu soo beer. halkaani waxaan ku soo gudbinaa qisooyinka. haddii aad xiisaysid qisooyinka noocyadoodii kala duwan, halkaan ayaynu kuga casuumaynaa. YouTube-keena subscribe noo saar, muuqaalkaani like saar. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. intaan muuqaaliga aan ku kulmi doono sidaas nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatu.